السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhalinyaro soo dhawaada aan leeyahay meel bood dunida daafeedka joogtaan si walba is arag maqalkaygu idin soo gaaray videogan noo like garay haddii aad tahay saaxiib nagu cusub oo maanta channelkeeda soo booqday subscribe na dheh aad ugu mahadsantihiin wararka ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga kooxdaada waxay ku cusub majaladaha wax ay qorayaan halkan ku qaada dhigi doonaa please waxaan ka codsanayaa dhammaantiina oo isku duubnaa inaad videoga like u saartaan si videoga asaaxiibo fiican oo sida idinkoo kala sida maalinba noogu imaadaan. Let's go. wararkii ugu dambeeyay halkan ku qaadaan dhigi doonaa saaxiibayaal oo ugu horeeya ninkii ahaa Paulo Dybala oo lambarkiisii official ka dhigtay kooxda Roma, Messi oo Inter Miami la leeyahay halkaas oo ku biiri doona, Ronaldo mustaqbalkiisa go'aan ka gaarayo, kulanka Manchester City ay la dheelayso kooxda isdiyaarinta xil ciyaareedka City oo kulankeeda dheelaysa, Ronaldo mustaqbal gaarayo go'aankiisa ama xil ciyaareedka dambe meeshu ka dheeli lahaa, Manchester City oo indhaha ku haysa wada hadalna la furinaysa ninkii ahaa tareegi ay ka doonayeen kooxdii Marco Correa inta soo naalka idinku soo gudbin doona, Arsenal oo gacanta ku dhigtay ninkii ahaa Alexander Zinchenko tababarka Manchester City shaladii hore ayuu ka tagay, Chelsea ayadana Kunde waxay kula dagaalamaysaa Barcelona inta soo naalka halka idinku qaada dhigi doona bilis wadada 4 kuna saaranahay yaana tariinka naga la ridinay. Let's go saaxiibayaal dhabarka iga bush gareeya channelka dhammaantiina like saara inta maalin channelka like saartana aad ay u mahadsan yihiin aan ku guda galna marka aan ka bilaawno Roma. Paulo Dybala waa ku dhawaaqdayne kooxda Roma ahayd wuxuu kula midoobay halkaas Jose Mourinho iyo Abraham iyo halkaas oo kala kacsanaa ninkii ahaa Paulo Dybala Argentinian kasteed wanaagsan lambarkii Totti ee Diashki ay ku dhintaan kooxda Roma loo soo bandhigay waxa la lambarkan qaado laakiin si waa uu diiday wuxuu yiri maya lambarkan waxa qaatay kabtanka dhiiga Champions League iyo lacag iyo wax walba wuxuu ka doortay Roma Francesco Totti marka wuxuu yiri lambarkan ma qaada karo sports waa respect saaxiibayaal ma fahamteen waa uu diiday Dybala wax kalena uma diidinay ninkaas uu qiimeynaya kulliba lambarka 22 farta laga saaray lambarkaas uu iska qaatay wuxuu taagan yahay bal meeshaana iska soo jamhadeena seasonka championka daaimada waa arka hada imaamaayeen waa ka soo taagay ninkii ah Paulo Dybala hadda halkaas kaga soo gudubna saaxiibayaal wararka wargeysada waxay qorayaan waxa kamid ah Juventus aydan dib haween ay isku wadaa saxiixeed cusbad daafaca ahaa wuu imaado magaalada Juventus saakada hore ayuu gaaday tijaabada caafimaadka lambarku xiranayo halkaas ay ku soo bandhigi doonaan hadduu ilaahay naftana gaarsiiyo fiidiyoyaasha kale oo caawanimada aynu kugu soo gudbi doonaa. Arsenal waxa leeyahay Alexander Zinchenko gacanta ku haysataa because xerada tababarka Manchester City shalay ayuu ka baxay Zinchenko ciyaartooyda Man City kuma jirin waxa la xiriirinaa Arsenal dhammaan majaladaha ka soo baxa Ingiriiska wariyaha caanka Fabrizio Romano dhammaantood waxay isku raaceen Zinchenko in 30 milyan ay soo dhiibeen ee 2 milyan ay ku soo dareen 32 milyan lacag dhan oo ku aadayo Arsenal hadalkaas ugu soo gudubno reer Arsenal Zinchenko gacanta ku haysatiin xaf iyo go'na dhaha Manchester City aydan nigeeya Manchester City Marco Correa wada hadal rasmi ah la furtay leeyahay kooxda laakiin ma aha ciyaartooyda leeyahay wada hadal la furtay wixii ka soo baxo ama ka soo kordho waa arki doonaa wararkeen hadhow ku arki doontaan ayakana waxaad ii keentiin marka xoog weynta London Chelsea is blue cagta waxay ugu saaroosaa cagta waxay u saaroosaa nimankii ahaa Barcelona Jules Kunde waxay taagan yihiin Koulibaly iyo Kunde ku istaajina waxa iga bedelay wax ay iga bedeli kartid malaha libaaxa leerta jiifaytay reer Chelsea reer Chelsea oo maxaa soo dhow galowsi walaalayaal mana kala yareysiino walaalayaal almiina mana kala yareysiino ana waxa ka baqaabo rafiina doonateen waa idinka tagay Ismaan Dembele doonateen heshiis saxiixay branki inuu idinku sameeyaa ka baqa laakiin waxa leeyahay majaladaha ka soo baxo Isbaanishka oo dhan waxay qorayaan in ninkan uu Chelsea rabo ee dhahan Gunda oo Chelsea xageeda u sii badanayo saacadaha soo socdo waxa leeyahay Chelsea waxay rabtaa ninka waa ogtiin oo lacag u haystaa dalab inay ka gudbiso oo ay rabtaa Chelsea laakiin waxa leeyahay si oo macnaha dalab heshiis wuxuu la gaaray Barcelona laakiin se Chelsea waxay rabtaa lacagihii ama ugu horeysa dalabka ugu horeysa Kunde inay ka gudbiyaan haddii Chelsea ilaahan kugu dhaarshay ay Kunde iyo Koulibaly ku soo istaajiso ya oo Sterling iyo Mason Mount iyo Pulisic iyo dadkaas ay taagan yihiin marka season ka dambe Man City iyo Liverpool ay kaliya kuma dagaalamayaan Chelsea way ku jirtaa
Manchester United supercomputer abu u soo adaalinayo wuxuu taagan yahay supercomputer Manchester qaadayso Tottenham waa u jeedin Liverpool waa u jeedin marka waa arki doonaa waxa yar ayaa banooga dhiman buhriyaaladii waa inoo bilaaban doonaan meeshaanan isku dafi doonaa maalin walbana halkaan ku kulmi doonaa adika waxaad igu dhiirigelisaan sheertiini laagtiini Soomaalida waa dadka kaliya ee adduunka maanta dhan wax loo sheego rabo maanta dhan sheer gareeya like saara arti in la laakiin ani mar walba waa idin dhaha hadda halkaas ka soo gudub saaxiibayaal kii Morgan ahaa oo Arsenal fans oo hadan ciyaaraha falanqeeyay wuxuu leeyahay ama warbixin oo ka soo saar Cristiano Ronaldo isbuuciida nagu soo aadan mustaqbalkiisa si sabca go'aan oo ka gaaraya waxaana huwa uu leeyahay si sabca in uu sii joogi doon Old Trafford Manchester United-na oo san xidig uu soo sii ahaan doonin sababtoo ah Manchester ma ka qayb galaysa ciyaareedka dambe UEFA Champions League asagana DNA-giisa ayaa ku shaqeeyo marka wuxuu taageeyaa CR7 waa idin ixtiraamay anigoo Manchester City rabto aan diiday aan dhahay Manchester United shayaadiin al-xumar araba marka walaalayaalo anigoo isku xumaanin oo isku booqin wuxuu yiri aan ku kala tagno Morgan marka wuxuu dhahayaa Manchester fanaanadeeda dambe in Ronaldo lagu sii arki doono uma eka taasna waxa sabab u ah Champions League la'aanta ka jirto Manchester oo siisa ka dab maadaama Europe League ay ka dheelayso Ronaldo waa baxa uu leeyahay Ronaldo oo tababar ka muuqanin oo saddex kulan ee dheesho Manchester oo ni imaanoonin dawarka ka dharbaaxa igaarkaas idinma soo socdo hadda halkaas ka soo gudubno kooxda Inter Miami ahayd milkiilayaasha oo ku jiro ninkii ku jiro Beckham waxa leeyahay waxa ay rabaan in ay keensadaan Messi waad ogtihiin qasho wuxuu ka bixiyay isna filkiisa PSG inuu qandaraas halsan ugu daro wuxuu taagan anaa go'aan ka soo gaari doona markii laga soo laabto koobka adduunka waa arki doonaa Messi halkuu qabto Ronaldo halkuu qabto saaxiibiya hadda halkaas ka soo gudubno reer Manchester City caawa Man City dheelays laakiin caawa ma ayaa habeen dambe 10 saac ay dheelay macna 10 saac oo habeenimo dheelay Manchester City America waa ogtiin xal xitaa Barcelona waxay dheelaysay 9 saac ay bar ciyaarta Man City waxay soo galay 11 saac ay bar marka waan arkaynaa saaxiibayaal Manchester City kulankeeda brilliant sheekeynayna because America waa ogtiin mo ayaantan salaanta waxay isku bishay niga bas amaan isku ciyaartooyda Mareykanka aad kooxda adiga intee isdiyaarinta xil ciyaareedka ku qaadanay committee noogu soo reeb aniga kooxdeeda halkaas iyo Miami ma lahayd mas America jirta Chelsea waxaan ku iri iyo Manchester City America kuma qeeyeen Barcelona America kuma qata Real America maxaa lagu arkay khayr badan idin rajaala videoga si share gareey like saara next 10,000 oo subscribe hal i gaarsiiyo bye bye